madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa wareegtay uu goor dhaweyd soo saaray waxa uu xilka qaadis iyo isku bedel ku sameeyay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xukuumaddiisa. مسؤولينته وحلالك كقاضي وحا كمدا عبد الرزاق علي عبد صالح وزير كهري وزارة عدالة عبد الرحيم عثمان حاج عبد الشبن وزير كهري وزارة قرشينتا يهرمرين قرنكا عثمان آدن جامع وزير كهري وزارة وحبرشة يساينسكا حسين إبراهيم حسن بوني وزير كهري وزارة قرشينتا يهرمرين قرنكا عبد القادر محمود شيخ محمد ورسمي وزير كحيوانكي هوري وزارة هورمارينتا ماليدا madaxweynuhu waxa uu wareegtadaasiis ku yidhi sida aad la socotaan xilka qaranka ayay sumadkiisa tahay inuu meerto noqdo oo loo idmado hadba ciddii hanan karta sidaa darteed waxaan gartay in laga bilaabo taariikhda maanta aan idinka qaado xilalkii aad hayseen ee kor ku xusan waxaan idinka mahad celinayaa muddo aad hayseen xilalka qaranka madaxweynuhu waxa uu isagoo hadalkiisa sii wata uu yidhi isla markaana uu mas'uuliyiintan u magacaabay waxaan go'aamiyey in laga bilaabo taariikhda maanta aan mas'uuliyiintan u magacaabo xilalkan xasan maxamed cali gaafadhi wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka axmed maxamed diiriye cige wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska سعيد سلب محمد حسين وزير كوزارة حنانة حولها يهرمرن تكلميسجا سليمان يوسف علي كوره وزير كوزارة ورفافنته وعيقلنته يدقنك محمد موسى ديريه وزير كوزارة هرمرن تبيها مصطفى محمود علي دله وزير كوزارة عدالة ليبان يوسف عثمان وزير كحين كوزارة دارمها دبادة إسكاشيك عالمية عبد القادر عمر جامع وزير كحين كوزارة قرشينتا يهرمرينتا قرنكا مهدي عبد الله عثمان وزير كحين كوزارة هرمرينتا عافماكا موسى إبراهيم يوسف وزير كحين كوزارة هرمرينتا ماليدا عبد الله محمد داهر ركوسي لطليها مدحوينها أعلمها دور شوينكا حاول صحفظ كان كسح احنا مدحوينها قرنكا سوماليلاند مدن موسى بيحي عبدين